dhalinyaradu qayb kama ahan oo kaliya ah dib u dhiska dowladnimada dalka, balse dhalinyarada ayaa ahba mustaqbalka dowladnimada dalkeena iyo horumarkiisa kan maanta iyo kan berrito. caalamka aan maanta ku noolnahay iyo taariikhda adduunka labaduba isbeddel walba oo muhiim ah oo taariikhi ah wuxuu ka bilowdaa qof dhalinyaro ah. saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ugu horreeyey ee islaantay, rasuulkana garab u noqday, iyo kuwii markii dambe suurto geliyey in diintu ay ku fido daafaha caalamka badankood waxay ahaayeen dhalinyaro. xitaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii risaalada loo dhiibay wuxuu weli ahaa qof dhalinyaro ah. cusmaan bin cafaan, cali bin abi daalib iyo cumar bin cabdilcasiis dhammaantood waxay ahaayeen dhalinyaro waqtigaa xoog leh. saalixudiin alayuub, hogaamiyihii muslimiinta ee xoreeyey qudus, wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo idinkoo kale ah. xorriyaddan maanta aan haysanno oo ay soomaali ku fanto waxaa ilaahay ka sokow sabab u ahaa oo dhaliyey dhalinyaro idinkoo kale ah. sidoo kale hogaamiyihii soomaaliyeed axmed gurey waxaa lagu weriyaa inuu ahaa wiil dhalinyaro ah markii uu bilaabay halganka. kacdoonadii qarnigii 18aad ee ka dhacay dalalka yurub, gaar ahaan faransiiska, waxaa hogaaminayay dhalinyaro idinkoo kale ah. dadka saameynta xooggan ee taariikhiga ah ku yeeshay bulshooyinka yurub, maraykanka iyo caalamka intiisa kale oo dhan, sida aabbihii nidaamka hanti wadaagga Karl Marx, aabbihii nidaamka cilmi nafsiga Sigmund Freud, aabbihii kacdoonka faransiiska ee Napoleon, waxay howlahooda kulligood bilaabeen iyo dadaalka mugga leh iyo isku dayga inay wax bedelaan iyagoo dhalinyaro da-diin oo kale ah. hogaamiyaasha xornimada u horseeday dalalkooda iyo bulshadooda sida gaandigii Hindiya, nagrumihii Ghana, mandelihii South Africa, Martin Luther Kingkii America, dhammaantood waxay dadaalka markii dambe guulaystay bilaabeen iyagoo dhalinyaro ah sidiina oo kalena hami u leh. raggii dadkooda u tilmaamay inay dayaxa tagaan ama tusaaleeyey in la gaaro buurta dusheeda sare waxay dadaalkooda bilaabeen iyagoo dhalinyaro idinkoo kale ah. shirkadaha ugu waaweyn uguna saameynta badan caalamka sida Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Tesla, Alibaba waxaa badankood aasaasay dhalinyaro idinkoo kale ah, waxaana caqli u ah shaqo maalmeedkooda dhalinyaro ka kala yimid daafaha dunida oo lagu soo xushay aqoontooda. wadamada Yurub iyo Maraykanka waxay dunida inteeda kale ka qaataan aqoon iyo maskax dhalinyaro si ay u xajistaan hormuudka ay dunida uga jiraan. sababtaan u soo qaadanayo tusaalooyinkaas oo dhan waa inaan idin xusuusiyo in idinkuba aad ka dhalinyaro ahaan aada naftiina, dalkiina iyo caalamkaba u horseedi kartaan horumar iyo isbeddel taariikhi ah. waxaan rabaa inaan idinku dhex aragno mandeelihii Soomaaliya, Martin Luther King Soomaaliya, SYL-ka cusub ee ah jiilka aada idinku hadda hormuudka u tihiin. inkastoo aanan wejiyadiina arkin, haddana waxaan hubaa inay idinku jiraan madaxweynayaashii berito, ra-iisul wasaareyaashii mustaqbalka iyo horseedayaashii isbeddel wanaagsan oo dalkeenu heli doono haddii Ilaahay yiraahdo. haddii aada la timaadaan dadaal una fikirtaan isbeddelka iyo horumarka la rabo inuu dalka ka dhaco, inaad idinku horseedayaal u tihiin. balse si aada dadaalkaaga ugu horseedo isbeddel, si aada dalkaada ugu horseedo isbeddel, dadaalka aada bixinaysana uu u dhalo isbeddel, marka hore adigu naftaada iyo noloshaada maaree oo meel ka soo saar. marka aada naftaada wax barto, horumarna gaarsiiso, ayaad qoyskaaga iyo ummadda inteeda kaleba horumar gaarsiin kartaa. intiina dhalinyarada oo dhegaysanaysa oo xiiseynaysa siyaasadda ee rabtaa inay kusoo biirto noqdaanna hoggaanka berito,
waxaan idin xasuusinayaa inaanan siyaasadda la isku casuumin hadiyadna loo bixin waa inaad dadaal ku bixisaan isabaabushaan aqbashaanna in buuraha idinku horgo-an aada u gudbi kartaan keliya inaad idinku noqotaan buur ka xoog weyn buurta idinku horgo-an abaabulkiina iyo isku duubnaantiina awgeed